asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadan kariim waa mar kale iyo barnaamijkeenii Ramadan series. Waa maalintii lixaad weeyaan, waxaana kaga hadlaynaa pre-dawn meal, saxuur iyo early mornings. Erayada ama hadallada lagu hadlo saxuurta iyo subaxda hore aroorta markii saxuurta loo soo kaco ayaan ka hadlaynaa. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan welcome, subscribe noo saar haddii aad YouTube ka daawanaysid, haddii kalena Facebook aad ku jirtine follow ayaa inoo soo dhihi karaysaa. Haddii ay ku dhaafeen cashiradii hore ee hore u baxay, waxaad ka helaysaa applicationkeena Waxkabaro Academy haddii aad soo download garaysid, kadibna aad taabato Ramadan English aad taabato, halkan ayay kugu diyaarsan yihiin oo mid alaala midka u baahan tahay ayaad furan karaysaa oo waad dhagaysanaysaa, kadibna codadkii iyo wixii oo dhan iyo kuwiisyadii ayaa halkan kugu diyaarsan. Aan maanta usoo laabana cashirkii aan ugu talagalnay. Alright, pre-dawn meal waa saxuurta weeyaan iyo early mornings ayaan ka hadlaynaa. Erayga koowaad ama jumlada koowaad aan baranayno maanta waxa weeyaan I overslept and almost missed suhoor this morning. Waan hurdo ayaa ila tagtay weeyaan. I overslept. Eraygaan baranayno waxa weeyaan hurdo ayaa ila tagtay. Markii hurdada kula tagto waxaad leedahay I overslept. Markaan intaad ugu talagashay in ka badan aad hurdo weeyaan. Almost missed. Waxaan ku sigtay weeyaan. Almost missed. Waxaan ku sigtay inaan seego ama aanan cunin suxuurta ama suxuurtii ay iga tagto ayaan ku sigta weeyaan. Almost missed. Jumladii halkan ayay noogu qoran tahay micnaheedu Af-Somali ah. Erayadaan barana waxa weeyaan overslept oo ah hurdo inay kula tagto, almost missed oo ah inaad ku sigatid weeyaan. Almost missed inaad ku sigatid inay ku seegto weeyaan. Marka qaybta commentiga sida caadada noo ahayd kusoo qora hal ama laba jumlo oo aad erayadan u isticmaalayso. Jumlo aad overslept isticmaalayso iyo mid aad almost missed isticmaalayso. Almost missed waa fudud yahay. Basaska oo kale markii ay ka tagi gaaraan oo kale waa ka hadli karaysaa. Imtixaanka oo kale waa ka hadli karaysaa. Waxyaabo badan ayaa ka hadlaysaa. Haddii applicationka igala dhagaysanayso codadkani applicationka waad ka shidan karaysaa si aad dhawaqa u saxato hadduu ilaahay ka raali noqdo. It's important, qaybta labaad ayaan u gudbaynaa. It's important to stay hydrated by drinking plenty of water during Suhoor. Waa muhiim weeyaan inaadan haraadin maalintii. Si aadan u haraadin taas waxaa u baahan tahay inaad biyo badan cabto xilliga saxuurta. Soomaali waxaa lagu dhihi karaa marka waa muhiim inaad biyo badan cabto xilliga saxuurta si aadan u haraadin. Eraygan stay hydrated ama hydration waxa weeyaan marka jirkaaga uu biyo ku filan u haysto weeyaan. Cagsigiisuna waxa weeyaan waa dehydration. So marka waxaan baranaynaa stay hydrated oo micnaheedu waxa weeyaan waa hubi inuu jirkaaga biyo badan uu haysto maalintii oo dhan. Kadibna micnaheedu waxa weeyaan ma oomaysid ama ma haraadaysid. Cagsigeedu waxa weeyaan dehydrated. Inaad haraadan tahay oo jirkaagu haraadsan yahay oo biyo ku yar yihiin. Dehydrated eray toos oo Af-Somali ayaan u haynaa oomanaan ama haraadid weeyaan. Laakiin erayga hydrated oo ah inuu jirkaaga biyo ku filan haysto Af-Somali haddii aad u haysid waan jeclaan lahaa inaad ila soo wadaagtid qaybta commentiga igu soo qor. Waa markuu jirkaaga biyo badan haysto ama aadan haraadneenin. Af-Somali maxaa lagu dhahaa? Waxaan kaloo baranaa iyadana plenty of micnaheedu waxa weeyaan waa wax badan. Plenty of biyo badan, plenty of food iyo wixii la midka. Cunto badan, biyo badan iyo wixii la mid ah. Badi ama badan weeyaan. Alright, codkana waa dhagaysan doontaa haddii applicationka isticmaalaysid. Qaybta saddexaad ayaan u gudbaynaa. I feel much more energetic throughout the day when I have a healthy suhoor. Maalintii oo dhan waxaan dareemaa energetic, qof energy leh ama nashaad leh ama xoog ama awood leh markii aan suxuur caafimaad leh cuno. Cunto nadiif oo suxuurta wanaagsan ama caafimaadka wanaagsan markaan cuno, healthy suhoor markaan cuno, energetic ayaan dareemaa. Cunto isku dheeli tiran oo nafaqadeeda u dhammaystiran tahay markaan ku suxuurto maalintii oo dhan energy ayaan dareemaa. Energetic micnaheedu waxa weeyaan waa firfircooni ama energy markaad dareemaysa. Throughout the day waa maalintii oo dhan weeyaan. Waxaan dareemaa firfircooni badan maalintii oo dhan markii aan cuno cunto suxuur caafimaad leh. Energetic marka waxaan dhahnaa waa firfircooni ayaan dhahnay. Throughout the day waa maalintii oo idil. Isku day marka inaad qaybta commentiga aad ku soo qortid jumlo aan tan ahaynin
oo ama mid negative oo tan oo kale negative ah inaad ku soo qortid qaybta commentiga. Alright, applicationka haddii aad iga daawanayso quizka hoos ayuu yaalaa, isku day inaad ka shaqayso. Haddii aad nagu cusub tahay Waxkabaro Academy ardaydiisa aadan ka mid ahaynin, waxaan kugu casuumeynaa inaan warbixinteena Waxkabaro Academy koorsada manhajkeena caalamiga ee dhammaystiran inaad soo fiiriso. Waa manhaj caalami oo dunida oo dhan laga isticmaalo, isla xisaabtan dhab ah, kulamo toos ah oo speakingka lagu dhisayo, cashiro aad iyo aad u tayo badan oo ilaa in ka badan 1000 cashir oo luqadda Englishka ayaan kuu diyaarinay. Marka isku day inaad badhankan hoose aad taabatid si aad faahfaahintan u heshid. Haddii ku cajabisana waad nagu soo biiri karaysaa, waan kusoo dhaweynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.